إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله منها وإياكم waxaynu ku soo guda jiray duruusteennii ayaamaha khayrka leh ee tobanka ah ee inagu talagalay bishan la yiraahdo Dhulxaj oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka yeelay ayaamo Ilaahay weyneeyay waxaynu shalay iyo maalintii ka horreysay soo akhrinay labadii darsi ugu horeeyay maanta waxaynu ku kulmaynaa idanka Ilaahay darsigii saddexaad saynu marka shalay soo tibaxnay waxyaabaha ugu mudan tobankan maalmood Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka yeelay tobanka maalmood ugu khayrka badan amalka la sameeyo tobanka maalmoodna ay yihiin tobanka Ilaahay ugu jecel yahay subhanahu wa ta'ala bal ay yihiin tobanka maalmood ee Ilaahay agtiisa ugu weyn a'damu ayaaman maartay fi dunya ayaamaha Ilaahay agtiisa ugu weyn inay yihiin tobankan maalmood bal in uu rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam iyaga gudahooda acmaasha lagu dadaalo haday tahay soon haday tahay salaad haday tahay tasbiix takbiir tahmiid tahliil iyo wixii lamida tobanka maalmood marka oo ibn Hajar Asqalani sidoo soo raray ay tahay tobanka maalmood ee ummahatul cibaada ay ku kulmaan cibaadadaas oo ka bilaabanta ikhlaaska Ilaahay iyo tawxiidkiisa oo ay ku xigaan salaadihii faralka ah iyo kuwii sunanka ah ay ku xigaan soonta sagaalka cisho la soomi karo maalinta Carafana ay maartay ugu sii cajab badan tahay qofkii isagu maalinta aan xajka iyo Carafa taagnayn ay ka mid tahay sadaqaadka la bixiyo iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhawaanshaha loo dhawaanayo maalinta tobnaad oo lagu khatimayo ciida weyn oo xajka iyo dadka dibadda xajka ka ahba ay ciidayaan oo farxadda ku ciidayaan dhiigii la daadinayo oo la gowracayo adaaxidii maalinta tobnaadna hadiyigi Ilaahay maartay Kacbada iyo masaakiinta loo keenay la gowracayo yaani acmaasha faraha badan leh ee sadaqadaas ama xajka ku ahaato mid ku xiran iyo cibaadada qayb kamida ama adaaxidii iyo udxiyadii han noqote waa maalmaha yaani maalmahaas weyn oo aynan cibaadada dhacaysa soo koobi karin waa maalmaha cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku jamciyay cibaadada weyn marka xajka ayaa kamida waxyaabaha la guto marka xajka si kooban hadaynu uga warano oo ah rugniga shanaad oo qof kasta oo muslina oo haysta maxaan ku raahdaa anta hujjal bayta man istata'a ilayhi sabila oo rasuulku yiri waa inuu qofku xajaa hadii uu awood u helo iyo istitaaco oo culimadu ku fasireen qofkii marka muslimka ahaa ee xajkii islaamka uu kaga dhacay xajku waa inuu yahay qaangaad caafimaad qaba oo xajkii soo gudan kara nafaqo xalaalana haysta jidkiina aamin yahay reerkiisii iyo ehelkiisina masaariftoodii iyo amnigoodii uu yahay mid la damaano qaaday marka kaasna qofkii wuxuu ku noqonayaa waajib marka rugniga shanaad ee xajka oo aynu dib ugu laaban doono waxyaabaha ku soo arooray oo xajka iyo umrada qofka israaciya Ilaahay ba uu damaano qaaday inaanu Ilaahay faqr damba tusin taana de Soomaalida ayaaba marxaad ka aho ma jiro qof Soomaaliya oo xaajiyo oo faqr martay uga baqi jiray ninku maalintu soo xajilay xaaji fulaan waxba tanasa lacagta jeebada uga buuxda waana wax Ilaahay damaano qaadayo umrada iyo xajka rasuulku wuxuu yiri hadii ay israacisaan waxa weeyaan Ilaahay wuxuu idin damaano qaadaya martay tafniyaani inay idinka fogeeyaan faqrka wax loo yaqaan lidalka faqrka waa laga xajaa faqrka waa laga xajaa oo waa laga umraystaa marka si kooban hadaynu xajka marka u tilmaano xajka saddex qaybood baa loo xajaa qayb tamattu baa la yiraahdaa tamattu macnaheedu weeyaan bilaha xajka dadkii inaga xajay markay xajka gaadhaan way umraysanayaan oo umray ku bilaabayaan oo haday xaj xidheen iyo haday xaj iyo umro xidheen iyo haday umro xidheenba waxay u bedeli karaan umro qura waana tamattu waa sida rasuulku saxaabada amray ee uu ku yiri markii ay yimaadeen Makka xajatul wadaa
saxaabadiisii wuxuu ku yidhi anigu hadyi baan wadaa walow istaqbaltu min amri ma stadbartu ma suqtu lhadya wala jacaltuhu maartay cumra haddii aan ogahay waxa maartay mustaqbalka aan ogaaday inay fiican yihiin haddaan ogaan lahaa hadyiga maan soo kaxeeyeen waxaanan soo cumraysan lahaa oo cumraan ka dhigi lahaa iyo tamatuc marka maxay samaynayaan marka ay ka soo xidhaan cumradoodii miiqaadku marka waynu arki doonaa ilaa miiqaadka rasuulka sala allahu alay wasalam ilaa 5 meelood buu sheegay miiqaadka reer madiina dulxulayfa meel la yidhaahdo ama abyaarul cali oo ilaa 420 kilomitir madiina u jirtay ka soo xidhaan qolada reer shaam iyo reer masar iyo wax alaala wixii dariiqa shaam ka yimaado oo dhan ama yurub ka yimaada iyana waxay maartay ka soo xidhaan meesha loo yaqaano juxfa ama raabiq baa imaka la yiraahdaa ilaa 186 kilomitir bay ayay u jirtaa maxaan ku raahdaa Makka u jirtaa qolada kale waxay ka soo xidhaan meel la yiraahdo qarnal manazil oo nimanka reer Najd ka yimaada bari kaga yimaada xajka waxa weeyaan iyana waxay ka soo xidhaan qarnul manazil ama maartay saylul kabiir baa la yiraahdaa ilaa 80 kilomitir ilaa 28 kilomitir buu Makka u jiraa inaga Soomaalida haddaan nahay ama East Africa oo dhan iyo Africa oo dhan yalamlam meesha wixii Yaman ku beegan meel yalamlam leeyahay ayaa laga xidhaa ama Saadiya oo ilaa 120 kilomitir u jirta qolada Iraq iyo Asia ka timaada wax alaal wixii ka yimaada daatu cirq meel la yiraahdo oo ilaa 100 kilomitir u jirta ayay maxaan ku dhahdaa ka soo xidhaan inta gudaha wixii ku jirta marka inta uu sheegay rasuulku xuduudaha wixii gudaha ka jira qolo waliba halkooda ayay xajka ka xidhanayaan ama wixii dibadda ka ah 5 xuduudood ayin baa mid kamida qofku markuu soo marayo ama uu ka dambeeyo uu xajkii soo xidhan karaa rasuulku wuxuu yiri hunna martay hunna li ahlihi martay li ahlihinna waman ata alayhinna meelaha 5 xad waxay u sugnaadeen ehelkooda iyo dadkii maxaan ku dhahay ehelkooda ka fog ee soo mara ayaa laga rabaa kuwii marka inta gudaha ku jirta qolo waliba meesha ay degan tahay ayay markaa ka xidhanayaan hadii ay xagga Makka gudaha ka xigaan 5 xuduudood marka qofku markuu mutamatic noqdo ee uu miiqaadka ka soo xidho markuu soo xidho waxa loo sunneeyaa inuu qubaysto kadib wixii cadar uu marsanaya marsado intaanu xajkii xidhan iyo umradii oo uu ismaartay maxaa la yiraahdaa wuxuu xidhanayaa ninku 2 go maartay guntado iyo go sare dumarkuna maryahooda waxay doonaan bay xidhanayaan kadib maartay wax udug iyo wixii ay marsan karayaan bay marsanayaan dumarka looma ogola inay wajiga maxaan ku dhahdaa qariyaan looma ogola qubaasayn iyo inay gacmaha wax geliyaan laakiin intooda kale maxaan ku dhahdaa dharkooda xijaabka ah caadiga ah ayay xidhanayaan raguna labada go ay xidhanayaan ragga hadii labada go ay waayaan waa loo ogol yahay surwaal inuu xidho waxa kale loo ogol yahay oo ragga xidhanayaan nacleyn haday nacleyn waayaan inay khuf xidhaan iyana waa loo ogol yahay waliba ay jaraan waxa la yiraahdaa maartay ma asfala min al-ka'bayn sida madhabka Shaafici aymada kale inkastoo qoliyaha Xanaabilada iyo xadiisku ay leeyihiin masaladaasi markii hore ay ahayd markii dambe in la jaro khufka yaani ahadiista xajatul wadaa ibn Abbas ay warinayaan ba maartay arinta maartay yaani qaybtii hore ahayd waa la nasxabay leeyihiin siday doonto waxa u dhacday marka qofkii markuu miiqaadkii ka soo xarmado ee qubaysto cadarkiisii marsado ee labadii go xidho iyo kabihiisii dumarkana wixii loo suneeyay ahayn niqaabka iyo qufaaseenkii ay xidhaan waxa laga rabaa in marka goobtii miiqaadka ay ka xidhaan oo yiraahdaan maartay labbayk allahumma hajj bil hajj haduu hajj qura xajayo haduu qiraan iyo hajj iyo umra israacnina yiraahdo labbayk allahumma al hajj wal umra haduu mutamatic yahay inuu yiraahdo labbayk allahumma umra ila umra ayaan maxaan ku radaa ku niyooday marka tamatucu hatta hadad hajj ifraada soo xidhatay dad qiraan soo xidhatay markaad Makka soo gaadho waad u bedeli kartaa tamatuc u bedeli kartaa sida rasuulku waa amray in tamatuc loo bedelo sallallahu alayhi wasallam qofkii aan hadyi wadin ama xoolo uu Kacbada ku gowracayo aan soo kaxaysan waana yaanihi nusuga ugu khayrka badan leh macnaheeduna muxuu yahay markaad Makka soo gaadho inaad dawaaful quduum samayso 7 jeer Kacbada aad dawaafto dawaafka waxa laga bilaabaa Xajar al-Aswadka ilaa laga soo gaadho hadana Xajar al-Aswadka dawaafka 7da ah saddexda ugu horeeya ee umrada dhinaca maxaan ku radaa labada rugni ee xiga dhinaca Shaam marka la marayo waa la gucleeyaa maartay ruuc baa laga siiyaa
isla markaana dawaafka uu horeeyay dawaaful ama dawaafka umrada mutamatica waxa weeyaan gacanta midig ayaa la qaawiyaa oo go'ana waa la jeeni qaartaa marka 7 jeer baa tirinaysa xajarul aswadka laga bilaabaa xajaruskan ayuu shawdka koowaad ku dhamaanaya 7 jeer waxyaabaha la sameeyo waxa kamid ah la ogolayn in xijir ismaaciilka aad gasho oo xijir ismaaciilka qaybta dhinaca xigta maxaa la yiraahdaa waqooyiga ee aan kacbadu dhisnayn gudaheeda marmaysid xagga dambe aad ka wareegaysaa waayo hadii kale dawaafkaagu uu soo gaabanaya 7 dawaaful qudumka aad sameynayso waxyaabaha loo suneeyo waxa kamid ah in xajarul aswadka aad taabato aad dhunkato haddaad awoodi karto haddii kalena imanka lama taaban karo ilaa 3 milyan oo qof meesha joogay inaad ishaarto oo sida intaad gacanta ugu taagto aad tiraahdo bismillaah allahu akbar aad tiraahdo dabadeedna aad bilowdo maxaan ku dhahaa dawaafkaagii rugniga yamaaniga xiga afarta geesa kacbada ka dhinaca yaman xiga xajarul aswadka ku xiga ee dhinaca maxaan ku dhahaa koonfurka xiga xajarul aswadka haddii isagana aad taaban karto waa la taabtaa haddii saana taaban karin waxa weeyaan dan u geli maysid marka 7 jeer maxaa la yiraahdaa rugniga yamaaniga iyo rugniga xajarul aswadka dhexdiisa waxa lagu ducaysaa rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina adhaban nar 7 jeer la dawaafayana wixii cibaado ah ee maxaa la yiraahdaa dad quraan akhriyayso iyo haddaad ducaysanayso wixii ilaahay adkaartiisa iyo dhikriga waa loo goli waxaan la ogolayn marka buuq iyo qaylo iyo dadka inaad riixdo lama ogolay meesha cibaadada u timiye marka uu qofku marka uu dawaafka umrada sameeyo ee uu dhameystiro muxuu sameeynaya wuxuu tukanayaa 2 ragcadood ayuu maqaam ibraahimka haduu awoodo ku tukanaya maqaam ibraahimka hadii kale meel kasta oo kamida madaafka ayuu ku tukanaya markuu taa dhameeyo ayaa wuxuu baxayaa safa iyo marwa isla waxay ku dhaxtaa masaajidka waa 2 buurood oo yar oo meel kura oo imika la sameeyay marka wuxuu ka bilaabayaa dhinaca safa inna safa wal marwa rasuulku wuxuu yidhi bima bada allah ilaahay wuxuu bilaabay ka bilaaba taasuu ka bilaabaya wuxuu ka bilaabayaa safa markuu safa marka waa kur yare istul taago ayuu qiblada soo qaabilaya maxaan ku dhahdaa maartay uu ducaysanaya dhikri buu akhrinaya la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah anjasa wahda wa nasara 'abda wa azza junda wa hazaba al-ahzaba wahda ayuu akhriyaya kadibna markuu istul taago wuxuu qabanaya xaqii marwa ayuu qabanaya marwa iyo safa meel waxa jira waadi ahaan jirtay oo ay ummu ismaaciil carartay oo ilaahay marka nusu ka dhigay 2 calan oo green ama ama akhtar ayaa ku yaala labadaas marka calan dhexdooda waa la cararaa wixii raga dumarka looma ogola iyagoo aayar bay iska soconayaan raggu marka 2 calan dhexdooda yaani rag maartay rasuulku ragada maartay ragta shadiida wuu cararay rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka 7daas iyana 7 jeer baa la tagaa shawdka koowaad maxaan ku dhahdaa waxa la tagayaa marwa 1 marka safa ka tagto marwa 1 hadana maxaan ku dhahaa safa 2 hadana marwa 3 hadana safa 4 hadana 5 hadana 6 hadana 7 jeer ayaad sacyigaas aad maartay ku dhameynaysaa marka marwa la joogo wixii la sameyn jiray safa ayuun baa la sameeyo intaad isdul taagto ayaa la soo qaabilaa kacbada dabadeedna maxaa la yiraahdaa la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir martay la ilaha illa allah wahda sadaqa wa'da wa anjaza martay anjaza wa'da wa nasara 'abda wa martay wa hazama al-ahzaba wahda ayuu akhriya marka uu dhameeyo ee uu ku dhameeyo shawdka u dambeeyo waxa lagu dhameeyaa dhinaca martay marwa qofkii marka ninkii mutamati ahaa timihii xiran maayo ila xajkii oo dhan baa horay uu gaabinaya timihii dumarkina iyana waxay jarayaan maartay qadar yaani xubin ah aan mula ayay timahoodii ka jarayaan marka umradaas oo ah inay dawaafeen iyo inay dawaafkii sacyiga marwiya la yimaadeen iyo inay timihii gaabiyeen 3 rugni waxa ku dhamaaday umradii koowaad ee tamatuca kadibna way xalaaloobayaan dadku jidday iska tagi karaan makay iska joogi karaan waxay doonaan bay cunin karaan dharkoodii bay iska bixinayaan dumarkooday maartay isaga tagi karaan ilaa la gaadho yawmu tarwiya maalinta yawmu tarwiya ay marka xajkii dib u xidhanayaan ka waxa la yiraahdaa tamatu ka labaad waxa weeye qaarin baa la yiraahdaa oo qaarinku waa maxay xaj iyo umro wada jirta ayuu soo xidhanaya oo xajka iyo umrada markuu soo xidho ninkaasi waa ninkii maartay hadiga soo kaxeeyay hadii kalena isagoon hadiiba soo kaxaynin hadigii wuxuu ka iibsan karaa kacbada laakiin waa way loo maxaan ku radaa xajo qiraanku
waa maxay xaj iyo cumro ayaa u wada xidhan isaguna sidii ninkii mutamatic ahaa markuu dawaaful quduumkii ama dawaafkii cumrada uu sameeyo ee 7 jeer kacbada uu ku dawaafo sifadii aynu soo sheegnay kadibna wuxuu tagayaa sacyiga safa iyo marwa ayuu tagayaa oo 7 jeer buu iyana martay sacyigii safa iyo marwa sameynaya labada markuu sameeyo isagu xiiran maayo ihraamkiisi buu iskaga joogaya ihraamkii uu lemaryihiisi maartay labadiisa go'ad cadda ayuu iskaga joogaya qofkii dumar aana ihraamkeedii xidhnaabay ku joogaysaa waxa ka xaaraana wax allaala wixii xajka inta lagu jiro ka xaaraanta aha yani waxyaabaha aynu sheegi doonay maxduuraadka oo dhan looma ogola wax ma guursan karo wax ma guurin karo reer ma jimaaci karo cadarkii looma ogola ugaadhii maxaan ku dhahdaa cidii ma guri karo timi ma xiiri karo yani ihraamkii niyada kama fasaqi karo yani waxyaabihi waa xaaj wax wixii xaaraanta ka ah oo dhan ay xaaraan ka yihiin ilaa yawm tarwiya isagoo sidiisii labadiisii go ugu taagan ayuu yawm tarwiya u baxaya ninkaana maxaa wada xidhan waxa uu xidhan xaj iyo cumro wada jirta ninka saddexaad waxa la yiraahdaa waa xaj qura ayuu soo xidhayo mufrid maartay ama ifraad waxa la yiraahdo ayuu ku xajayayo xaj qura ayaa u xidhan isaguna muxuu sameeynaya isaguna ninkan qaarinka ah waxma kaba duwanee marka qaybta dambe ku kala duwanaan doonaan qaybta hore cumradii dawaafkeedii buu sameeynaya sidii uu tamatuca iyo ninka qaarinkiiba ay u sameeyeen isku mid safa iyo marwana sidii bay wada dawaafayaan isaguna timihiisina gaabin maayo dharkii ihraamka ahaana bixin maayo wax allaala wixii xaajiga ka xaaraan haba isna ka xaaraana ilaa yawm tarwiya la gaadho labada qof marka ninka qaarinka ah xajkii cumradu wada xidhan yihiin iyo ninka xajka kaligiisa soo xidhay maxaa farqa u dhaxeeya ilaa cibaadaadka dambana way la wada imanayaan saynu arki doono waxa u dhaxeeya farqa u dhaxeeya wuxuu yahay ninka qaarinka waxa laga rabaa hadi dhiigu gowraca laga rabaa laakiin ninkan xajka kaligiisa soo xajay isaga dhiig lagama rabo lidalka xaj qura ayuu leeyahay cumro lama male waana kay hadii jeer Soomaalida Shaafiiciyadii ay ku xajaan oo intay iska xajaan ay hadhow tanciim tagaano markaas ay cumradina raaciyaan waa sida maartay madhabkeena fiqiga Shaafiiciga dadka looga bartay laakiin sida khayrka badan leh waxa weeye waa tamatuca oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam jeclaysiiyay dadka marka saddexdii suura waa kala faanteen tamatuca oo qofku intuu cumraysto uu xalaaloobayo dabadna yawm tarwiya dib xajkii uga bilaabayo isagana waxa siyaado waa maalinta uu xajka dhameeyo ee tobnaad gowrac baa laga rabaa ilaa uu tamatucayo raaxada oo raaxistiradeed ayaa waxa laga rabaa neef adhiya inuu gowraco hadduu ehelkiisa ay farabadan yihiin 7 qof ehelkiisa aba ama neef loo laga rabaa ama neef geela laga rabaa marka dhiig buu daadinaya marka saddexdaas nooc baa loo xajaa marka hadii saddexdii sidii ay markay cumro u yimaadeen kacbada ay u cumraysanayeen safiya marwana u saciyeen ama marka ihraamkii ugu joogayeen ama ay uga xalaaloobayeen tamatuca hadaynu soo sheegnay maxaa ku xiga marka waxa ku xiga oo maxaa la yiraahdaa ay qofka xaajiga ahi uu sameeynaya marka yani uu sameeynaya wax iska ilaalinaya inta aanu cumraysan haduu mutamatic yahay iyo marka uu yawm tarwiya dib xajkiisa u xidho iyo hadii uu yahay qaarin ama maartay ifraad oo xajkiisiiba aanu ka dhex bixin ilaa markii uu soo xidhay waxyaabo waxa jira xaraam ka ah ninka muhrimka ah ee umro iyo xaj u xidhan yahay maxaa ugu horeeyo waxyaabo xaraanta ka ah waxa ka xaraan ah inuu cidiyaha gooyo ayaa xaraan ka kow waxa kale oo xaraan ka ah inta uu muhrimka yahay inuu timaa xiiro waa laba waxa xaraan ka qodobka saddexaad inuu wax cadar ah ama udug ah uu isticmaalo waa saddex lama ogola qodobka afraad waxa xaraan ka ah ugaadha laba loo qaybiya ugaadha badda iyo ugaadha bariga ugaadha biyaha waa loo ogoliyay laakiin ugaadha bariga ah waxyaabaha ugaadha ee bariga ku nool in uu didiyo iyo inuu ugaarsado iyo inuu daandaansado intuba xaraan bay ka tahay ninka soo xajaya waayahay waa afar qodobka shanaad waxa xaraam ka ah ninka xajka jooga ee xajku ama umradu ay u xidhan yihiin qad'u al-ashjar wa nabadat fi al-hajj dirta xaramka ku taala inuu qofku gooyo
iyo waxyaabaha nabaataadka kale oo dhan iyana xaaraan bay ka tahay looma ogola qodobka shanaad waxa xaaraan ka ah laa yaltaqidu maartay luqada wax allaala wixii baadi ah ee uu xaramka ku arko ma taabanayo ilaa inaad qofkii intuu ka dhacay aad aragto tiraaho waxan baa kaa dhacay mooyaane ama inaad intaad soo qaado meeshii dadka waxyaabaha luma la geyn jiray inaad geyso mooyaane oo aad yacni si loo yaahdeeyo ciddii lahayd loo siiyo marka qodobka lixaad waxaa xaaraan ka ah kaa xaaraana wixii lumay ee baadi ah inaad taabato hadday xoolo yihiin iyo hadday lacag yihiin iyo hadday alaab yihiin ilaa inaad dadka ugu yeedhisa mooyaane qodobka toddobaad waxaa kaa xaaraan ah inaad qof dumara taabato oo aad shahwo u taabato ama aad la baashirto oo aad wax ka daydo reerkaagii ama inaad wax guuriso ood weli noqoto adoo maartay xaj ku xidhan yahay ama inta weli lagu noqdo in adiga wax lagu guuriyo waa 10 masalo ayaynu maraynaa taasna qofku hadduu xaj u xidhan yahay xaaraan bay ka tahay waxa xaaraan ka ah oon loo ogolayn dumarku inay wejigooda daboolaan oo ay niqaab xidhaan looma ogola marday muxrimiin yihiin oo xaj u xidhan yahay ama muxrimaad yihiin waxaan loo ogolayn qodobka 12aad inay qufaasayn waxyaabo gacanta inay geliyaan looma ogola lama ogola iyana waxaa qodobka 13aad ragga xaaraan ka ah inay madaxooda daboolaan iyagoo muxrima qofku maradu muxrim yahay madaxaaga dabooli maysid haddaad isilowdo adigoo maartay inta badan waa la isilaawaa marka maartay waxa adigoo gooy madaxa saaro baad sarkaysaa waa laga rogaanaa yar waxna laguma leh maadaama isilowdi ilaahay baa wuxuu rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhdana ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا waxa kamid ah arinta 14aad ninka looma ogola inay wax mariyo oo la tolay labada gooyad xirantay waxaan hayn ma xidhan kartid ana matante hoosaan lagu ogolayn waxaan lagu ogolayn saraawiil waxaan lagu ogolayn jacket lama ogola yani maro yani la tolay oo yani la tolmageliyay oo lugo iyo gacmo iyo leh lama ogola labada goon baa loo guliyay bas makhiid baa la yiraahdaa lama ogola waxyaabaha masalada 15aad waxaan loo ogolayn maxaan ku dhahdaayen in maxaa la yiraahdaayen yani looma ogolo qofka laqwi iyo rafas iyo fisqi iyo dembi iyo xan iyo fadhi ku dirir waxaas oo dhan looma ogola waa xaraam mardaad xaj joogto ilaahay subxaanahu wa tacaala marti u tahay xaj mabruur ah oo كيوم ولدتك مارتي أمك سيدي مالنتي هو إذا كل شيء وكل ساد ولا صار نقطه وحاصرنا لقوم أقلا وايه أنت صار من مركب محظوراتك حارانتك هوية مركب صفة الله حاجة ينا أما الله عمره سنة ينا صدح ذا قيبضوا إنه صار شيء نيك تمتعة ينيك قرانك iyo ninka ifraadka sameynaya marka muxuu sameynaya qofkii marka uu kacbada yimaado dawaaful qudumki ama dawaafkii umrada ayuu sameynaya inuu soo sheegnay dawaafka gudihiisa 7 shawd wuxuu sameynaya idibaaci 3 shawd ee ugu horeeya macna idibaac 3 shawd oo horeena uu ordaya uu gucleynaya waa dawaafka ugu horeeya dawaafka ifaadaha lama gucleeyo waa halkii dadku maartay aan yani maartay kala aqoon labada dawaafka xajka ee weyn maalinta 10aad iyo wixii ka dambeeyay la dawaafi doono lama gucleeyo laakiin dawaafka gucladu ku jirtaa waa kee waa dawaaful qudumka ugu horeeya umrada saddex macnaha inta la ordayaana saddexda uu shawda ugu horeeya oo waliba xigta maxaan ku radaa labada rugni ee dhinaca xiga maxaa la radaa shaam ayaa maartay la gucleeya maartay ruc laga siiya sunankiisa waxa kamid ah dawaafkaas aynu soo sheegnay idibaac inaad dhinaca midigta aad yani maartay marada ka saarto oo aad maartay aanad go'a saarin ee go'a halka aad jeeri qaarato halka yani gacanta midig hoosteeda inaad go'a mariso way waxa kamida maxaa la yiraahdaa xajrul aswadka saynu sheegnay inaad ka bilowdo dawaafkaaga oo aad ishaarto haddii aanad markaa dhunka karin ilaana suurtagal ma inaad dukato dadka fara badan aad tiraahdo bismillaah allahu akbar halka aad ka salaanto waxa kamida in rugniga yamaaniga markaad soo gaadho shawdka koowaad iyo 7 shawdba hadii aad istilaam ku sameyn karto inaad taabato hadana taaban karina bas maartii u dhawaan maysid 7 shawd marka saas ayaad ku dhameynaysaa 7 shawd marka saynu soo sheegnay waa inaanad xijir ismaaciilka gelin waayo marka dawaafaysa dad xijir ismaaciilka gasho dawaafkaaga ma dhameystirna saynu soo sheegnay laba ragcadood waa inaad ku tukataa maqaam ibraahimka markaad gabagabayso dawaafkaaga umrada koowaad
waayahay inta dawaafka aad ku jirto dadka Asianka wada arkay gidaarada Kacbada ay ku dhagaan oo gidaarka oo dhan bay istilaam ku sameeyaan waxaasi waa bidac iyo khuraafaad iyo waxaan asal lahayn yani iyagoo dawaafaya bay Kacbadii ku dhagayaan looma ogola meeshan amal baad ku jirtaa sida salaado kale marka amalkaas waa inaad maartay aad socodsiisaa marka aad dhamaystirto dawaafkiina degtaadii maartay qaawanayd degtii ama maxaa la yiraahdaa garabkaagi qaawana waa inaad maradii ku soo ceshataa kadibna waa inaad Safa iyo Marwa u baxdaa waxa laga bilaabaa marka labadii ragcadood ee dawaafka tukato oo maartay maqaam Ibraahim ku tukato hadaad ku tukan kar weydana meel kale oo kasta waad ku tukan kartaa kadib marka labada ragcadood tukato hadaad awoodi karto istilaamka intaanad Safa aadin iyo Marwa xajar aswadka la taabtaa oo la dhunkada hadii si aanad awoodi karin ishaar dabeedna Safa iyo Marwa xagooda aad sidaynu sheegnay Marwa Safa laga bilaabaa waa la isu taagaa ducooyinkii baa la akhriyaa dabeedna Marwa la aadaa waa la isu taagaa ducooyinkii baa la akhriyaa ducooyinka akhriyaysa mar walba xagga qiblada iyo Kacbada ayaad soo qaabilaysaa marka toddobadii jeer aad dhameysay iyadana meesha labada Safiya Marwa u dhaxaysay inuu caalamka greenka ku sheegnay waa la cararaa rag way cararaan dumarkuna aayar bay iska soconayaan wali acmaashii koowaad ee umrada ayeen ku jiraa ama maxaan ku radaa ninkii xaajiga ahaa ee xajka iyo umrada soo xidhay iyo kii umrada mutamatica ka dhigay iyo kii xajka keligii ka dhigay saddexduba maartay ilaa halkan way wadaagaan kadib ninkii marka isagu mutamatic ahaa waxa la rabaa marka inuu gaabiyo timihiisi dabadeed xalaaloobo ama labadii nina kale iyagu waxa weeyaan waxay ku joogayaan ilaa iyo maxaan ku radaa yawm tarwiya waxa weeyaan ihraamkoodii bay qabayaan oo waxa leeyaan iyagu xalaaloobi maayaan waa saddexdii yani maartay amal oo midna uu yahay tamattu midna uu yahay maartay qiraan midna uu yahay ifraad oo inuu hore soo sheegnay kadib maalinta yawm tarwiya la gaaro halkaas aynu marayna hadda yawm tarwiya maalinta la gaaro fi yawm thamin oo ah maalinta 8aad ayaa waxa loo baxaya subaxa hore waxa la aadaa Mina ayaa la aadaa halka waxa lagu tukadaa salaada duhur iyo salaada casr iyo salaada maghrib iyo salaada cishaay iyo salaada subax maalinta 8aad yawm tarwiya ee berito kale ay noqonayso maalinta 9aad ee Carafa shanta salaadood waxa lagu tukadaa Mina lama jamciyo waa se la gaabiya oo salaadihii afarta ahaa laba la tukanaya laba duhura laba casra laba cishaaya maghribka saddexeed baa la iska tukanaya salaad subaxna labadeedii baa la tukanaya maca reer Maka ayaa marka gaabinaya maca reer Maka ayaa iyagoo Mina iyo Makana martay wada yaalaan qaar baa martay wadana way gaabinayaan waa sidii nabiga sallallahu alayhi wasallam umadiisa uu jideeyay maalintaas 9aad waxa la aadayaa subaxeeda waxa loo dhaqaaqayaa Carafa ayaa loo dhaqaaqayaa waa maalinta taas rasuulku yiri al-hajj yawm al-Arafa subaxeeda waana afdalul yawm maalin cadceedu soo baxdo waa maalinta ugu fadliga badan sida rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam Carafa xuduud bay leedahay maanta waa la cadeeyay xuduudda border baa ku yaala xuduudda gudaheeda Carafa waa inaad gudaheeda gashaa hadaad khaarijkeeda joogto waxa weeye xajkaagi uu ku saaga rasuulku wuxuu al-hajj Carafa marka xuduudda waa inaad iska ilaalisaa Carafa xuduud bay leedahay marka xuduudda gudaheeda waa inaad gashaa meesha ugu mudan ee qofku istaagaa waxa weeyaan waa Masjid Namira oo yani waadiga Carafa yani maartay gawtinkiisa ku yaala marka Namira waa meeshii rasuulku istaagay sallallahu alayhi wasallam dadka ugu khudbeeyay maalinta khudbada ugu weyn ee maalinta 9ka ayaa la jeediyaa hadad khudbada marka dhageysan karto way fiican tahay hadii kalena 3 milyan meel khudbad kama wada dhageysan karaan ee Carafa oo dhan meesha istaagtaaba waa mowqif Carafa marka maxaa la sameeyaa iyana waxa lagu tukadaa salaadaha casr iyo duhur baa lagu jamciyaa labadaas qura lagu tukadaa dadka qaar jabal rahmay tagaan oo rasuulku istaagay iyo xablul mashaadka laakiin dadka qaadimayso marka inaad dadka dhifto maaha hadaa tii karto waa tii kartaa hadii kale maaha compulsory rasuulku wuxuu yiri Carafa oo dhan waa mowqif halkan baan istaagay rasuulku yiri Carafa laakiin waxa ogaataan buu yiri Carafa oo dhan rasuulku uu garanayay in yani dadku way ka badan doonaan meesha marka inaad dadka dhibto oo maartay yani lama ogola marka Carafa waxa la taagnaanayaa ilaa iyo inta maqribka gabalku ka dhacayo salaada maqrib lagu ma tukado qiblada ayaa la qaabilaa
maalinta carafa ducaa la wixii ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad uga baahantay oo dhan baa ilaahay la weydiistaa subxaanahu wa ta'ala waxa lagu mashquulaa yani baryo iyo maxaa la dhahaa khayr iyo maxaan ku dhahaa quraan akhris iyo wanaag iyo xumaanto la reebo iyo wanaag yani waliba cibaadaadka ugu mudan maalintaas waa cibaadaadka kaliya ku khuseeya ila waa maalintii ilaahay la faqayay subxaanahu wa ta'ala yani qof yani munkar hadaad aragto waad radin oo qofka munkarka ku sugmaysid laakiin xataa in dadku iswaacdiyaan oo yani cibaadaadka la sameeyo waxa ka mudan cibaadada adiga ilaahay idin dhaxay subhanahu wa ta'ala way waa maalintii ilaahay aad rabtay dunuubtaada iyo adiga iyo isaga wixii idin dhaxeeyay inta aad u sheegto la faqdo inuu ilaahay ka dhaafo subhanahu wa ta'ala oo aad toobad keento marka carafa markuu gabalku ku dhaco waxa weeyaan lama ogola ila gabal dhaco in la baxo markuu gabalku dhaco ayaa sidaaya lagu mana tukado maqrib musdalifa la imanaya musdalifa marka la yimaado ayaa waxa lagu jamciyaa salaadii maqrib iyo salaadii cishaay ayaa lagu jamciyaa waxa aadaan baa loo sameeyaa iyo laba aqim habeenka musdalifa loo hoydaa habeenka musdalifa ayaa loo hoydaa jamci baa la yiraahdaa salaada subax in yar ka hor maxaan ku dhahay qalaska ayaa la istaagaa salaada subax la tukadaa ma'arul xaraamka iyo musdalifa oo dhan baa qof istaagaa ilaa ay cadceed soo baxay marka cadceed soo baxdo ayaa dadku marka waxay baxaan oo maartay aadaan mina ayaa la aadaa maalinta mina marka la aado todobada dhagax ee ugu horeeya ee jamratul aqaba dhinaca Makka ugu xigta oo quraya maalinta koowaad la tuuraa todoba dhagax baa laga soo qaataa marka musdalifa todobada dhagax baa la tuuraa waa maalintii tobnaad acmaasha la sameeynayo marka dhagaxa soo tuurto xoolahaagi baa la gowracaa marka adigu hadaad gowracayn dadkii ka wakiilka haba gowracaya kadibna timi baa la xiirtaa saddexda amal baa marka la sameeyaa oo waaweyn qofku haduu ka gaarsiin karo isla maalinta dawaaful ifaada inuu soo sameeyo dawaaful ifaadi buu soo sameeyaa oo dawaafkii weynaa buu soo sameeyaa marka dawaaful ifaadahaas markuu intaanu dawaaful ifaadaha sameyn ee uu dhagaxii soo tuuro xoolii gowraco timihii uu xiirto taxallulkii koowaad dumarka mooye wax waliba xalaal bay ku yihiin dharkii baad iska bixin cadarkii baad isticmaali laakiin ilaa dawaaful ifaadaha weyn aad samayso waxa weeyaan dumarkii xalaal kuma aha dawaaful ifaadaha marka aad samayso ninkii mutamati ahaa ee isagu soo umraystay maxaa laga rabaa inuu sacyi cusub la yimaado safa iyo marwa laakiin ninkii qaarinka ahaa ama xajka keligii soo xajay ee safa iyo marwa isagu hore u soo saciyay xajkiisina aan ka xalaaloobin isaga sacyi iyo maxaan ku radaa sacyi safa iyo marwa laga rabo marka halka haynoogu martay halkaas uu martay xajkii guud ahaan uu ku dhan yahay kadib dawaaful wadaa ayaa ugu dambeeya iyo ziyaarada haduu qofku Madiina tagayo masaajidka rasuulka uu ku soo tukado oo nabiga marka soo salaamo iyo Abu Bakar iyo Umar maxaan ku radaa meelaha Madiina la tagana waxa kamid ah in baqiic martay xabaalihii la soo booqdo iyo in maqbaradii martay shuhadadii Uhud la soo fiiriyo iyo masjidka Quba in lagu tukado intaas buu xajku gabahanba ku dhayay marka la eego gudihiisa wixii ahkaam martay waa baab gaar ah laakiin xajku intaas ayuu ku dhan yahay marka jazaakumullahu khayr aan dadaalo qof walibana xajka sidii uu xaji lahaa oo yani uu xajka u baran lahaa aan ku dadaalo xajkuna wuxuu kamid yahay 10 maalmood waxyaabaha ugu khayrka